aad iyo aad mar kale iyo kulanti wanaagsan dhammaan asxaabta ku xiran janaalkeena Some Gold Wafis waa idin salaamnay mar kale iyo kulanti wanaagsan maanta xagee joognaa waxaa joognaa xeebta Liido ee degmada Cabdilcasiis marka maanta barnaamijka meeshaan u imaanay wuxuu wax kala ma ahan waxaan rabnaa in aan sharxaad buuxda idin ka siino saa hore idin kaga balan qaadnay waxaa dhaanay waxaa idin soo gudbinaynaa noocyada doomanka oo kala baxaan marka doomanka way kala baxaan maanta waxaan rabnaa in idin soo gudbino doontan hadda u jeedaan oo ah doon shaqo doomanka waxay kala baxaan mid shaqo mid dalxiis iyo kuwa kale hadba nooca loo adeegsadaa laakiin midna hadda u jeedaan waxaa loo adeegsadaa shaqo marka magaceeda iyo matoorka ku xiran cabirkiisa intuu yahay kalluunka nooc lagu soo qabanaa waxaas dhan waxaa sharxaad naga sii doono kabtan Shucayb inta muuqaalkan soo gaarsiinin waxaa idinka codsanaynaa inaad subscribe noo saartaan sidoo kaleeto muuqaalka laaga dhahdaan share noo dhahdaan si uu gaaro asxaabta kale ay jecel inay ka faa'iideystaan nolosha badda aad iyo aad waa mahadsantiin soo dhawahay waa mahadsantiin doonta hore u soo aragteen doonta xaddiga arki doontaan waxa la yiraahdaa faanabood ama saxiimad sida habka Soomaalida geey kala duwan ay joogto oo kala taqaano waxaan saarnaa jeesta wax la yiraahdo taxanaha insha Allah oo sii socod doona taxanaha ku fahmi doontaan waa hordhac doontaas waxay aadaa jeesto waxa loogu talagalay in lagu soo jilaabto libaaxa ama shaarka isaa u taqaanaan libaax badeedka iyo kalluumada kale oo sidii wayambuurada oo kale iyo istawaaniga waaweyn jeedarka ah habka kalluunka waaweyn loogu talagalay ayada waa jeesto shabaagna ma aha waxaad u jeedaan doomankan badankooda waxa wada saaran aad indhahooda ku wada arkaysaan waxay ku leeyihiin jeesto weeye hadda xilliga jeestada lagu jira sida maanta oo kale muuqaalka duubeen oo kale waxa jirta dabeel oo duruuf adag ay ku shaqeynayaan kalluumaysatada marka waad dareemi kartaan cadaadiska ee kalluumaysatada iyo markasta sida u dheeran yihiin ayadoo maanta dabeel jirto dabeesha maanta aad jeedaan ama badda marka fiirsaan halkeeda wada cadahay wali dada baxay oo kalluumaysi u baxay marka waxa lagu baxayaa shabaag ma waa jeesto lagu qaraab tagayaa insha Allah barnaamijkana taxanuun nii noqon doona inta badan marka waxaan jeclaan lahaa inaad ka bogataan anaga la socotaan waxaan rabnaa wixii adinka noo dirteen kaliya taas bas culays ka saarayna focuska ah insha Allah waan islaamiyaa dhamaantiin assalaamu calaykum waan islaamiyaa dhamaan bahdeena ku xiran Some Gold Wafis doonta waa doon saxiimad ah waana doomaha kalluumaysatada ee noloshooda ku tiirsan ay ku nool yihiin aniga ka mid ah xataa dadka ku nool oo badda ka shaqeeyo ma sha Allah baalkan u jeedaan waxa la yiraahdaa calan baashan kuusan ama ushan waa calan waxa lagu xiraa jeestada afkeeda hore la dhigaa waa sumad ama waa astaan aad ku ogaa karto inay doonta markaad shaqada ku gudo jirto inay ka furatay jeestada badda aad dhigatay ama qalabka badda dhigatay qalabkaaga ay xafidaysaa waa sumad calanka waa isla fahanay midaan kalena waa tuulkaaga wax kasta gashanaysa tuulkaas oo baanadaha ahaadaan cashadaada ha ahaato dhuxushaada waxaaga oo dhan meeshaas gashanaysa motorkan waa kaas motor foodhi inuu yahay waa dareemaysaa shidaalkana qaabkaas hoos loo saftaa waa shidaalka lagu soconayo inkastoo hadda ay leedahay ii sheeg caagadaha ay ku yartaa marka meesha waxa ku jirto jeestadii tan u jeedaan waxa lagu gaanjeeyaa libaaxa ama yambuurada markii ayagoo nool jeestada ay galaan markii la rabo in la dilo waxa ka qayb qaata processka lagu dilayo tan jeestadana iyo barnaamijkeedana taxaniin noo noqon doontaayo maalinta ka dambayso ii sheeg qayb ii faahfaahisi doonaa waxaana ka mid ah doomaha yararka oo saxiimadaha oo ii sheeg kalluumaysiga aad waliba tan cad waxay aadaa shabaagta ma aaday jeesta saaran waa jilbiye kaliya ama maqaalin sida dadku yaqaanaan marka waan islaamiyaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad sida aad u jeedaan doontan hadda idin muuqato maadaama lagu aadayo jeesto waxaa loogu talagalay in lagu baxo 3 qafood shaqada marka ay tahay jeesto doontana ay tahay faarbood ama midaan idin muuqato oo dhererkeedu yahay 6 mitir iyo bar waxaa loogu talagalay in lagu baxo 3 qafood kow maaquudaha ama kabtan iyo 2 qafood ee kale oo ah baxaari
waa maxay kabtan ama naaquude? Kabtan ama naaquude waa qofka wadaayo doonta ama darawalka doonta. Okay, waa maxay baxaari? Baxaari asagana waa second drivers, waa darawal ku xigeen ama naaquudiyaha ama kabtanka ay ku xigeen shaqada jeestadana wax ka qabanayo. Waa maxay jeesto? Jeestona waa baashan hadda aad u jeedaan sidaan ayay u samaysan tahay. Waxaa la gelinayaa cantalaal si uu libaaxa u soo galo. Sidoo kale baashan aad u jeedaanna waa salbatooyada shidaalka. Shidaalka ayaa lagu shubaa. Intaas kadib matoorka doontan ku xiran waxaa soo saaray shirkadda Yamaha. Cabirkiisuna waa 40. Inkastoo matoorada ay kala duwan yihiin, waxaa jiro matoor Shiinees ah, mid suuga ah. Marka warshado badan ayaa jiro oo matoorada soo saaro. Sidoo kale matoorada cabiradoodana way kala duwan yihiin. Waxaa jiro mid 15 le, 20 le, 30 le, 40 le ilaa iyo 60 le. Marka midkaan hadda idin muuqdo waa 40. Marka doomankan cabiradoodu way kala duwan yihiin. Hadda doontan maadaama cabirkeedu uu yahay 6 mitir iyo bar oo dhirir ah, dooman kaleeto oo waxaa jiro oo nuucan u samaysan laakiin ka cabir yar ama ka cabir weyn. Marka sidaas ayay ugu tirsan yihiin nolosha badda. Waana maasantihiin. Waxaan rajeynayaa in aad muuqaalkan wax badan ka faa'iideen.